بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد السلام عليكم walaalayaal halkan maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 5 bisha Rabiul Aakhir 2017 hijriga ah kuna beegan 5 bisha September waxaa loo taagan yahay soo dhaweynta Islaam Bashiir iyo wafd ballaaran oo Umar Maxamuud u badan oo wada socda hadii alla idmo oo u socda arintii hadii Ilaahay idmo ka dhaxdhici jiray walaalaha Maxamed Umar iyo reer Mahad oo la xaliyay heshiis laga gaaray khayr laga gaaray heshiisiinta iyo dib u soo celinta walaalnimada iyo maartay ehelnimadii awalba jidhay shaydaan ka shaqeeyay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu maartay sidaas noogu hirgeliyo aad baa loo faraxsan yahay dadkii magaalada jooga waa kuwaas wadada taagan yihiin balbasle iyo dad badan oo gaalkacyo ka yimid oo madaxda haweenka iyaguna gaalkacyana waa noo yimaadeen dhamaanta oo iyaguna ka soo qayb galay shirki ka soo qayb galay waa tilmaamadeen calankii bay noo sidaa ilaah baa ku mahadinayna subxaanahu wa tacaala waxaan sugaynaa waa islaankii insha allahu kariim iyo wafdigu la socday يا فرحتني مؤمن مانتا ما شاء الله فرحت المسكون عمر محمود ويشيي هلكي وانا يحدقينو اسلام كيغي نو ايمانيا ما شاء الله ولكم ما الحمد لله رب العالمين الحمد لله ilaahay ma ku mahadinayna islaamka iyo odayaasha ka shaqeeya dadka ka shaqeeya hawshaas waxaan leenahay Allah idin barakeeyo saasan ilaahay weydiinaa subhanahu wa ta'ala intaas waxa sii dheer oo kale waa kana hadda waa socdaan wafdigana waa dhooban yahay sidoo kale riigii baa u soo horeeyo oo islaamka uu soo hormariyay baa ilaahay baa mahad si hawsha maartay si waxay ku tusaysaa sida la isku afgartay iyo khayrka lagu heshiiyay ku tusaysaa taasi ku tusaysaa waa kaas hadda wafdiga hadda soo galaya soo socda soo dhow yahay assalaamu calaykum assalaamu calaykum هيا السلام عليكم odayaal soo dhawaada madaxda gobolka iyo degmada iyo galkacyo kulli waa dooban yihiin Allah idin barakeeyo ilaahay waxa uu ku balbislada iyo culamadoodiiba waa dhan yihiin ilaah baa mahad leh والله كبح حاجه ورشي اي يلا اسكت معلك يا وجه ودي وي لا ما كنت بهذا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين dadku kala yahay lama arka Soomaaliya waxba kala aha shidooyinka iyo qaharka ay dhawaatay magaalada dadka la madoobeeyo islaamka oo soo horeeya oo soo degay hadda ya ay حاجه سوق قال والله حاجه هذا قال لي كيف انا افتكر وليك انا هذا والله ما شيء ده سوي وشنا حاجه ولا يسوي في حياه سيده هذول قدر